ciidamo uu hogaaminayo sargaalka Masdile iyo sidoo kale xubno kale oo shax macabe uu ku jiro ayaa xalay waxay la wareegeen deegaano dhowr ah oo gobolka Shabeellada Dhexe dhaca. Ciidamada ayaa xalay howlgallo xoogan sameeyay waxaana howlgallada beesha Abgaal kaliya uu ka socdaa qaybo ka mid ah dhanka degmada Balcad halkaas oo ay ku sugnaayeen saraakiil uu hogaaminayo Korneyl Cusmaan Xaadoole oo galinkii dambe ee shalay gaaray degmada Cadalle halkaas oo uu kula kulmay saraakiil uu hogaaminayo Jeneraal Gacmo Duuliye iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan xoogga dalka balse beel ahaan ka soo jeeda Wacisle. waxaa muuqatay in Cusmaan Xaadoole uu ka dhaqaaqay dhanka degmada Balcad isagoo gawaari ku baxay taasoo muujinaysa in awoodda ciidamada isagoo hogaaminayay qaybo badan oo kamid ah ay qabteen. dhinaca kalena waxaa jirtay in dhaqdhaqaaqyo xoogan uu sameeyay shax macabe halkaas oo xalay saraakiil badan uu kula hadlay qaybo kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe waxaana jirtay in deegaano dhowr ah ay qabteen ciidamada uu hogaaminayo shax macabe iyadoo awoodooda iyo xuduudooda ay ahayd mid muuqata sida ay inoo xaqiijiyaan saraakiil ka tirsan xoogga dalka. garabka uu hogaaminayo shax macabe ayaa muujiyay awood badan waxaana xalay shabaabka ay ka saareen deegaano dhowr ah. dhinaca kalena madaxweynaha Hirshabelle ayaa kulan kula yeelan doona saacadaha soo socda xubno saraakiil ah magaalada Cadalle sida wararku ay sheegayaan. madaxweynaha ayaa ku sugan Raagaceelle halkaas oo kulmo uu kula qaadanayo mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Hirshabelle. ciidamada deegaanka oo garab ka helaya militariga Soomaaliya waxay al-shabaab ka qabsadeen deegaanada kale ah Bakajeex, Warciise, Warkulan, Gaaleef, Qorar Dheer, Jilbleyl waxaana deegaanadaas ku sugnaa kooxda shabaab. deegaanada la qabsaday waxay hoos yimaadaan degmooyinka Jowhar iyo Raagaceelle ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana howlgalladaas hogaaminaya madaxweynaha Hirshabelle madaxweyne Cali Guudlaawe, xildhibaan Xaadoole, gudoomiye Axmed Faali iyo mas'uuliyiin kale kuwaas oo dagaalka ka bilaabay Balcad ilaa iyo Raagaceelle. al-shabaab ayaa toddobaadkan oo kaliya laga qabsaday deegaano badan oo ka tirsan Balcad, Jowhar iyo Raagaceelle inkastoo weli aan la dhaqaaqin ciidankii ku sugnaa aaga degmada Cadalena ay ku sugan yihiin isla goobtooda taasoo muujinaysa in awoodooda ay isugu geynayaan sidii mar kale ayagoo heshiis ah ay dagaalka u qaadi lahaayeen. balse ciidamada ku sugan aaga Cadalle ayaa la tilmaamayaa in qorshe iyo sidoo kale ay u joogaan sidii ay arrimo siyaasadeed xildhibaanada danta kale ay ugu qaadan lahaayeen balse Xaadoole ayaa noqday xildhibaanka kaliya arrimihiisa siyaasadda aanan ku xirin. dhinaca kale Jeneraal Axmed Maxamed Cali Sowtreedisho, Boqor Cabdullaahi Geedi Shatoor, Wasiir Axmed Bilaabe, Gudoomiye Axmed Caato mas'uuliyiin kale ayaa ku baxay beelo walaalo ah oo xurgufi ku dhex martay deegaanka cadow u leh gobolka Shabeellada Dhexe waxaana dhinacyada dagaalamay ku baaqeen xaalad degdeg ah aysan soo laaban xurguftaas dagaal iyadoo kulamo ay la qaateen. ciidamada dowladda waxay la wareegeen deegaano badan iyadoo dhinaca kalena waanwaantii kala dabqaadida ay jirto. dhanka kalena waxaa jirta in beeshii Daa'uud ay qaybo kamid ah gaareen degmooyin ka tirsan Shabeellada Dhexe halkaas oo iyana dagaalka ay ka qaadi doonaan iyadoo dhaqdhaqaaqyadaas xoogan ay wadaan. haddana xildhibaan Xaadoole iyo sidoo kale Maxamed Soodiye ayaa waxay ku damaashaadeen deegaano kale oo Xaaji Cali iyo Xarur ah halkaas oo dagaalku saacadaha soo socda ay ka bilaabi doonaan sida wararku ay sheegayaan. xildhibaan Xaadoole wuxuu shalay la qadeeyay xubnuhu hogaaminayo Jeneraal Gacmo Duuliye, Jeneraal Cabdullaahi Macalin Nuur iyo sidoo kale saraakiil kale oo xoogga dalka ka tirsan kuwaas oo Cadalle kula kulmay iyadoo dhinaca kale ay mudan tahay